بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. runtii farxad weyn bay noo tahay kulligeen intaanaan bahda warbaahinta oo qaybaheeda kala duwana oo haddana carre Ingiriis wada joogta England kaliya ma dhihi kara waxa laga yaabaa meelo kala duwan oo Britain in laga kala yimid farxad bay noo tahay kulanka iyo salaanta iyo qiimeynta iyo sharfidda Abdullahi Xaaji ninba haday wuxuu lahaa Abdullahi Xaaji magaciisa markaa maqashayna BBC xasuusanaysa BBC markaa xasuusadna Abdullahi Xaaji intaas waa inta maaragtay komanka markiiba ku soo dhacaysa laakiin wuxuu ahaa school of his own في dugsi buu ahaa meesha inta yadii isaga u timid waqtigii eediyadii dhamaadkoodii iyo intii ka dambeysay iyo waxay ahayd hadduusan joogi lahayn waxyaabo badan oo maanta aanu hoogaa magac iyo sharaf iyo aanu ku yeelanay waa waxba ka nusqaami lahaa mar walba idaacadda marka laga soo baxo qofka uu markaas u arko xoogaa inuu tararaxay xagga xaggu iska fiirsho u yeeri jiray oo shaahiis u shubi jiray markaas uu jiray saas oo sida kama fiicnaan lahayn waxba beesa ma haya macnaha ka sii hagaaji weey sidaas ka fiicnaan lahayn marka qof waxaan u maleynayaa 40 sano la soo dhaafay BBC ama 50 sano la soo dhaafay oo oran kara Abdullahi Xaaji waxbaan ka sheeganayaa iyo waxbuu iga bi'iyay wax aan ahayn wanaag anu wali ma hayo runtii wali ma hayo nooc kasta ahaa qof bini aadan wax ka sheeganaya shaqo wax tar ma ahana iyo wanaag ilaahay baan maartay waxaan u rajaynaynaa sidaas maartay uu waligiis wanaagsanaa wanaagiisaasi in ilaahay adduunkana uu maartay u sii hagaajiyo aakhirana meesha ugu wanaagsan ee u geeyo anuu Cabdinuur ahaan waxaan aaminsanahay macallinkay runtaa inuu ahaa BBC qofka wuxuu dhigi jiray wariyaashu moogta wariyaal kale isu ekaysiya be of your own buu dhigi jiray eraygaas isticmaali jiray war adiga ishabee adiga wax lagaaga dayda samayso hebel ha ku dayan qofba qof buu ku dayan jiray oo codkiisa isu yeeri jiray waxbuu ka samayn jiray wuxuu dhigi jiray adigu kaagu ha ku anfo kalsoonidaada isku qab markaas waxaad leedahay wallahi waa maxaa soo ekaysiinaya fay ilaa maalinta dambe maartay ay naftu kugu soo noqoto adiga xoogaa aad saaminto marka hadda shaqadiisa ma ahayn waa wuxuu Soomaalinimo iyo Islaamnimo u sameeyay BBC-da uu maartay buu ahaa tababar ma ahayn buu ahaa hadda ninba wuxuu lahaa dadka ugu waaweyn Soomaalida oo taariikhdooda iyo anigu waxaan ilaahdaa waxaan ragga footballka markay maartay ay qiimeynayaan ciyaartooyda waxay yiraahdaan the greatest of all time hadda waxa ah muxuu Messi hadda Messi anaga Abdullahi Messi the greatest of all time oo media Soomaalida iyo saxaafadda marka dad badan aan fiiriyo the last 20 years aan qiyaasay the last 15 years iyo 60 sano dambe hadda Soomaaliya jiray iyo waad garanaysaa invitation-ka dhalinyarada badan oo media ku jirta Abdullahi Xaaji dib baa loo dhigaystaa YouTube-ka la galaa dib baa loo dhigaystaa dad badan baa iska dhigaya oo raba inay maaragtay ay tabtiisii waxa kaliya oo aan ku xasuustaa waxa weeye su'aalihiisa adkaa أنا ديجي عبد الله إذا عدى معنا نقدر هذا بلايد ونقول هذه لفتة حتى التلفزيون عاد كل شيء كسر تونسول وكوسة صورة هذا نقدر هذا إذا عدى مش ندري أنو كلنا آد لنا عن سؤالها أنا to the point way هاين لكن شاب هاي ننو من ده هجرين
72 مية ما محاسب يدور حكير قرما إلكشن قبريسا تيكر عضي مركب سكول نوعها ليد نوعها هاجي ولنا وكوير قلنا إيه كاستو دميري هلا جواب حموته يفك يفنانته waxaa shil laga baxo laga weynaado wala isiga jira waxa kaliya hadda uu noo daran waxa weeye in ilaahay uu wadankan noo hagaajiyo wadanka xubnihiisa iyo waaxihiisa kulli waa kala daadsan yihiin miidiyahaas aad arkaysid oo hadda anagu halkaan isugu nimid oo aanu kaalin fiican ka soo qaadanay iyadoo ay jirtay wax badan oo naxirayay hadda markii social media la galay wixii dadka qabanayay oo dhan ba meesha ka baxay waxay iska noqotay jantar rogan mararka qaarkood adaaba ka baqayaba oo ka dhuumanaya in media lagu lamaanayo sidii ninka odaga ayaantii mid buu laadlay walaalkiis wuxuu yiri wareer lacag soo dir si xagee joogtaa si magaalada hebla ma waa geeliyo xoolihii si war gabdhihi baan soo tagay meesha dadku reer magaal buu noqday si maxaa lacag ku samaynaysaa si camera ku gadanaya wariyaan noqonaya والله إنك صوب تشيل لك اسمه something وعج با مركا وكما مركا إلهي waxaan ka baryaynaa in uu maartay waqti fiican sukaay keeno sukaay celiyo إلهي waxaan ka rajaynaynaa in caafimaadka wax walba ugu muhiimsan إلهي waxaan ka rajaynaynaa in caruurta iyo ehelka iyo dadka oo dhan iyo إلهي إنه نجوب بدبادية عروتي وأنا وكرتي دراتي كوريسي عنقي لبي تونادو أوه هاي بقى يقول شيء لندن مركا يجان حوجة سارين أنت أصلا كده ده علينا يوم أنا إصلاحين مارتا كسب وأنا كسب لا علينا الحمد لله هذا وجادنا مجتمع محقق روح ماضي لما أورن كرو ودنكي مقيد أضافة يا بأفرت جس 5 سنة مركا سلاد أوه غير ما أدري والله ما ها كوا عبتويها لا خمرة قدر عليه وحبط واحد 5 سنة كوا مركب ethics كي النظام كي قيم كدتك اللي يغني وحي والله يبقى خاص شغل عي وحنا كيني كان تعرف كنت عن دتك الشرعي بقى عليه يحق وضع دوره الشرعي بقى ماشي كبحي حقي لما دور كره مركا هذا الشرعي وصل الى لنا لبدينا waa ilaalinaya marka aad iyo aad baad uma hasantiin akhyaarta ilaahay hayda sharfo ان هذا صورك laga arkay magac muu yeerin kare حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وربضا كل أنا قلته مايو عبد النور إيو سالمين إيو عبد الرحمن إيو مريم با إيو ديسنا با تاريخه كل الدوان أي كهلين شرف إيو كرامي إيو تاينان عبد الله لكلمو intii reede BBC da aan jooga aan sheekooyinkiisa iyo wanaagiisa la noolaa marweed Cabdiraxmaan Cabdi Nuur wuxuu yiri BBC da iyo waxa lamaan Cabdullaahi Xaaji ana waxay la tahay warbaahinta suuban iyo waxa sinanimo ah iyo Cabdullaahi Xaaji sinanimo warbaahinta anshaxa leh asluubaysan marka Cabdullaahi wuxuu la sameeyay warbaahinta suuban oo sida daay laga sheegay anshaxa ka shaqeysa dadka uu adeegta madaxdana la xisaabtanta waraysidiisi aan ku naqin waxay ahayd madaxweyne markaas awood badan inuu su'aalo adag weydiiyo oo runtii dad badan aanay ku dhicin xilligan oo dadku ay sida hore ka furfurayeen ayaan su'aalaha noocaas ah aan warbaahinta weydiin marka inuu dadka Soomaaliyeed u adeegay madaxdeeda inuu la xisaabtamay yaa kulay ugu jirta bogga hay'adaha ama shirkadaha runtii loogama shaqeeyo kaliya in lacag laga helo waxa inta badan wanaagsan in looga shaqeeyo wax laga barto BBC da aniga inta aan joogay odayaasha la kulmo way koobnaayeen horteebay inta badan baxeen laakiin runtii waxay ahayd meel aanan kaliya lagu keedinin aqoonta warbaahinta lagu keediyo taariikhda dadka wax ka bedelay warbaahinta Soomaaliyeed Cabdullaahi Xaaji wuxuu ahaa dadka maanta sheekadiisa ay soo noqoto qof asluub leh wuxuu sameeyay yaqiinay
ku dhaqmayay sharciga halkaas ka jira siduu yahay runtii BBC-da waxay leedahay sharci loo sameeyay inay warbaahin ku horumarto kan ugu wanaagsan aniga dhihi lahaa laakiin qofkii bartee akhriyee ku dhaqma yaa un ka soo baxaysaa wanaagiisa waxaa intaas sii dheer oo kusoo gabagabayn lahaa wariyaalsha Soomaaliyeed warbaahinta waxa ay ka soo mareen iyo waxay tahay wax ka qoray runtii aad u yaryihiin garanba ma aniga buug oo qof Cabdullaahi oo kale uu qoray oo meel yaal marka waxay ku cadeyn kaliya intuu shaqeynayay inuusan hawsha wadin inuu noqdo qofka kaliya ee ka tagay buug dhaxal ah isaga dabadiyay anaga dhan dabadeen haraya dadka soo socda oo haraya Cabdullaahi waa maasan tahay sharaf ay tahay in aniga kula kulmo 10 sano kadib markii aan BBC-da imid hadayna maraa ka sheekay hal mar aan Cabdullaahi mar soo wacay aan rabay inaan waraysi ka qaado maalintii aan ballansanayn ya Queen Elizabeth dhimatay wala soo hadla anoo rabay inaan excuse u sameeyo raado Cabdullaahi maanta kooma iman kar taleefanka markuu iga qabtay wuxuu igu yiri war maanta howl badan baa idinta leh waxba waraysiga ku filmaysid ay iman markan saas ula socdo waxyaabaha dhacaya nin og xil ka saaran qofka wariyaha ah sida saxda u shaqeynayo gabigeena kale sharafno tahay inaan la kulanno in taariikhdiisna looga sheekeeyo isagana nooga tagay waxaan buugga la yiraahday dadka qor waxa la yiraahdaa wixii la qoraa qoroomaha hore muxuu hadal qiimo leh marka inuu xitaa buugga ka tagay calaamad inuu dadka ka duwan yahay ay runtii muujinaysaa aad ugu faraxsanahay ku arko aad ma santahay bismillahir rahmaanir rahiim marka hore magacayga waa Maxamed Axmed Deysane oo ahay ciyaartoydii hore ee Soomaaliya oo ciyaari jiray naadiga Batroolka hase yeeshee saxaafadda waxaan soo galay 2010 markii BBC-da bilowday ciyaaraha sportiga runtiina caawarta aad iyo aad ugu faraxsanahay raggii aniga dhiirigeliyay ama meesha rag badan la keeno ciyaartooy ay laftigooda meesha ka hadli jiray laakiin xilligaasna koronta madax meesha ka ahay oo na keeni jiray waxaan xasuustaa maalmaha kamida anagoo ma joogna saaxiibkay Cabdinuur waxa aan la asgarina inuu ka hadlo ninkan wax sax u sheegaya Cabdullaahina horta caadi ma baahan wallahi waxaan xasuustaa markuu dhageysto wuxuu ii soo duubi jiray cod oo dhigi jiray you good analyze sanata kanata ilaa hadda intaas aan BBC-da joog qof idhahay weligay qatarata ma arkin taas marka waxay ku tusaysaa inuu way aragnimada inay tahay ilbaxdan moralku ii dhisi jiray marmar anoo bas saarna waxa ii soo dhici jiray WhatsApp-ka dhag cod waa dhageysana wallahi Cabdullaahi waa oo la brilliant tahay kanata waa idii rigeliyay mor intaas kale kuma ekeen hatta wuxuu ii sameeyay wadi jiray wuxuu iga jiray kantiinka cunto iyo shaah iyo wuxuu ii fargalay jiray ana marka Tottenham aan deganaa laakiin wuxuu meel dheer wuxuu dhigi jiray lacaga baabuurku raacdan ku siina intuu gees ii bixiyo waxaan dhigi jiray waa mahadsantaa ya lacag waxta ii fargalay jiray wallahi ana been ku sheegay markii aad BBC-da la waayay aniga nafs aanteedii niyad ahaan waxaan dareemay inaan dambiile ah sababtoo weligay qof saas ahay uma tegin musoo booqan xataa taas marka qalbi ahaan waxaan aan dareemay inaan qof qaldan ah oo qof saas oo ku dhiirigeli jiray inaad adigana aadan raadin sharaf xumo igu ahayd taasna waa ka raali gelina cawadan ka raali geliye aan ka raali gelina waxaan leeyahay ka raali noqo qaladkaas aan galay runtiina waxaa tahay qof Soomaalidu u baahan inay ku daysato oo mid kale أنا مركا إيمانها إذا أنا هاي حنك إمدي ما أوجي سومالي نمو يدير جليجر بدي يقول ري أنا ماشي يمد رنتي مركا إلا يحدنا رنتي وكجرا سبورتي أو BBC دي إلا يحد هوش ووضع وسبدي حد كستان وضع هذا أي سبدي حد ما شقيان لكن أنا جا شقينه معلمها كلو سنينتا جمعنا إذا عدى برنامج عياران كلا قيب قاتها 3 دقيقة 2 دقيقة أنا وسمي عيارها مركا أدي أدا أمهات سنتهاي إنتاس كالمدا أبسو مالك عن كبر تلفس أنتي ذا أو مركا نمانا أريد تليانية أو
iyo ingiriis iyo balaayo iyo aan tuuraay waxaas dhan waa la iga titiray waxaa iga titiray raggaana iga titireen runtii waa aad iyo aad ugu mahad celinaa af soomaaligayga naftigayga hadda markaa cayaaraha ka hadlayo ma jecli wax qalada inaan ku hadlo dadka qaar waxay dhahaan facebook waxaan aad lagugu fiirsan erey fiican ma dhahdid oo erey oo xun title kuma qoro mana dhaho sababtoo hay-addii tababartayba noocaasba ma aha marka aadaan horta dhammaan dadka bbcda ka shaqeeya aadaan uga mahad celinaa aan la soo shaqeey khaasatan cabdulaahi waxaan leeyahay waa nin soomaaliya una baahan soomaalideen inaan ku daysanno wanaagiisa oo wanaagiisa waxaa yaqaano dadkii la shaqeeyaa yaqaan runtii marka aniga intaasaan kusoo gabay waa mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله هرتا انت لغا شيغay ku celi maayo hadii aan ilaahdo ku celisid waxaan oranayaa saacad iyo bar baan qaadanaya ama 2 saacadood laakiin hal arrin baa raba inaan xuso horta waan idinkaga mahad celinayaa kulankan weliba si degdeg inta u qaban qaabinay inaan la isku yimid saaxiib badan way jiraan oo socod ordaartay xitaa maxamed cabde cod buu soo duubay laftigiisa oo yiri meesha ka shid si cabdulaahi islaantaas iga gaarsiisid arrinta marka muhiimka ah raba inaan xuso waxa weeyaan waxaan runtii ku faraxsanahay cabdulaahi marka laga tago buugga uu qoray iyo dhaxalka uu reebayo in taariikhdiisi aan ka sheegayn isagoo naga maqan laakiin isagoo nala jooga inaan taariikhdiisa ka sheekayno aad buu u fiican tahay soomaalidana waxaa la yiraahdaa qofka markuu dheeraado baa la xusaa marka cabdulaahi qiimayntaan aan siinay kaliya ma aha saxaafadda waxay tusaale u tahay casharna u tahay in culimada is xusto siyaasiyiinta is xusaan ganacsatada is xusto dhalinyarada is xusto maxaa ula jeedaa waxaan maraynayaa maxamed musmax cabdulla qof baa yiri saxaafad oo kaliya ma aha uu yiri cabdulaahi yani guri kasta oo Soomaaliyeed ay cabdulaahi laga yaqaan markii aan go'aansanay barnaamijka inaan qabano waa la soo hadlay waxaan ku raacay cabdulaahi habeenkii dhawato barnaamijkii aan joognay oo anigu xiriiriya ka ahaa Soomaali odil baa joogtay laakiin anaga ku baahan saxaafadda cabdulaahi wuxuu yiri diyaar baan ahay marka waa garan kartaa meesha ka joogta waqtiga ii sheeg buu waqtiga aan u sheegay oo u soo diyaar garownay meesha doontaa baan idinku imaanaya idin raacaya taa waxay muujinaysaa qiimaha iyo qofka uu yahay asaga laftigiisana waxay u tahay wax weyn maxaa yeelay waxaan oran karaa waa hanti Soomaaliyeed cabdulaahi buugga maxamed qaliim uu ka hadlay uu yiri cabdulaahi ku soo riixo yiri hal la sameeyo cabdulaahi uma taale anaga noo taala wali rag qorayada noo jooga maxamed xalaala noo jooga oo buug qoray saxaafadana ka qoray buug raad la yiraahdo marka waa ka wada shaqeyn doonaa buugaas Soomaali waan ka dhigaynaa insha Allah taala anaga hawshiisa noo taala cabdulaahi wuxuu sameyn kara waa sameeyay cabdulaahi mar kale aad iyo aad baad u mahadsan tahay anaga saaxiib gaar oo nolo yahay HBN runtii talooyin buu nasiyaa eray waxa jira aan isticmaalno markaan ka sheekeynayna bariga dhaxaan oo yara badanahay ama marka dagaal dhaco eray waxaan isticmaalnay dagaalyahanka cabdulaahi intuu nasaxoorna soo wacay wuxuu yiri waxa ladin qaadanaya in dhinac la safantiin marka dagaalamayaasha eraygaas ku bedela marka had deertaan buu nasaxaya cabdulaahi iska wada BBC-da marka cabdulaahi taasna aad iyo aad ugu mahadsantahay wax badan dhihi maayo ku celi maayo kaliya waxaan rabaa inaan yani aan iraahno cabdulaahi xaaji magaciisa maxaan ka baran karnaa marka taariikhdaas dheer ee caawa ka sheekeyseen waxaan ka baran karnaa inay tahay inaan ku dayano in qaabku ku gaaray yani magacaasna iyo inay tahay sumcadaas yani muddada dheer ku soo shaqeynay commitmentiga iyo in yani aan ilaalino sumcada waxa la yiraahdaa sideedaba habeen kuma dhisanto waa wax muddo dheer laga soo shaqeeyo reputation la yiraahdaa af Ingiriisiga marka reputation kana waxa la yiraahdaa waxa aad tiraahdo iyo wixii aad sameeyso iyo wax dadka ay ka aaminaan what you say what you do and what others say about you marka cabdulaahi magaciisa maantay waxa uu ku yimid muddada dheereed uu ka shaqeynayay laanta af Soomaaliga waraysidii iyo sida rag iga horeeyay sheegeen yani ka shaqeyntii iyo hufnaantii iyo sida ummadda ugu adeegay ficiladiisii kale ee ah soo dhaweynta iyo karaameynta bulshada markay u yimaadaan iyo dadkii oo aaminay ficilkiisii iyo yani maaragtay iyo soo dhaweyntaas ku qancay
intaasna waxay timid in muddo dheer yani maaragtay la sameeyo sumcadaas haddii aan la ilaalin waxay ku baabi kartaa hal habeen marka wariyaasha waxaan kaga dayan karnaa inaan sumcadaas oo kale aan samaysano jidkiisana aan marno ayaan maaragtay aad iyo aad ugu faraxsanahay Cabdullaahi aad u mahadsantahay mudane aad iyo aad u soo dhawaad